dhawaan la soo magacaabay oo maanta ahayd maalintii ugu horeysay golaha ay soo fariisteen kadibna waxaa warbixino laga dhageystay wasaaradda amniga iyo wasaaradda gaashaandhigga oo sida caadiga ahayd amniga guud iyo ay naga siiyeen warbixino kooban kadibna waxaa dood dheer laga galay oo marti noo ahaa hay-adda jinsiyadaha iyo xuduudaha uu marti noogu ahaayeen maanta golaha wasiirada waxaan laga hadlay dadkan ka soo qulqulaya wadamada dariska ee Soomaaliya imaanaya iyadoo la tixgelinayo lana aaminsan yahay Soomaaliya ayada nafteeda inay dhibaatooyin fara badan ay qaxootinimo soo aragtay in la waafajiyo heerarka caalamiga ah ee loo isticmaalo qaxootiga wadankaaga imaanayo iyadoo isla markaas la dhowrayo dabeecadda dabiiciga ah Soomaalida iyo dhaqanka Soomaalida in tirakoob sax ah laga helo dadka ku soo qulqulaya meesha degan yihiin waxay u degan yihiin waxay damacsiin haday yihiin dad sii socda haday yihiin dad dhaqaale ahaan wadanku yimid marka taas waxa loo saaray guddi ay ra'iisul wasaare ku-xigeenka uu madax ka yahay si ay uga soo baaran degaan dhabta xogta runta ah ee dadka Soomaaliya maanta ku soo qulqulaya waxa kale looga hadlay arrimaha iibka qaranka iyo habsami raaca iibka qaranka ee sharciga ka yaalo si ay hay'adaha dawliga ah iyo wasaaradahaba ay ugu dhaqmaan sharcigaasi wuxuu qabe ka yahay wasaaradda maaliyadda laakiin waxaa jirta in lagu amray wasaaradaha inay dhowraan habsami raaca qandaraasyada ama heshiisyada ay wasaaradaha ay la galayaan hay'adaha caalamiga kadibna waxaa la soo bandhigay qabiil qoraalka hanaanka cadaaladda iyo asluubta ee dawladda federaalka Soomaaliyeed ee wasaaradda cadaaladda soo jeedisay taasoo ahayd mid ay bilihii ugu dambeeyayba aad loogu mashquulsanaa in la soo hormariyo sharcigaasi waxaa laga soo gudbiyey guddi hoosaadka siyaasadda loo dhan yahay haddana maanta waxaa la keenay guddiga weyn ee golaha wasiirada waxaana lagu ballamay in sharcigaasi loo qeybiyo wasaaradaha iyo ay quseyso oo dawladda oo dhan dood la geliyo kadibna sidii loogu soo ansixin lahay golaha wasiirada ee shirka noogu soo horeyn doona hadduu ilaahay raali ka yahay kadibna waxaa warbixin kooban na siiyey wasiirka qorsheynta guddigii dhaqaalaha qaranka ee dhawaan la aasaasay 11kii bishii 8aad ee uu daafuray ra'iisul wasaaraha guddigaas oo ka koobnaa 9 xubnood iyo waxtarka ay u leedahay Soomaaliya in la helo guddi dhaqaale oo ka soo warbixiya ka tala bixiya dawladana u noqda gacan dheeraada si dhaqaalaha horumarintiisii go'aan looga gaaro marka shirkadaas ku saabsanaa si fiican ayuu ku dhacay jawi fiican ayuu ku dhacay wasiiradii horena iyo kuwii dambe waa aad loogu reeyay shirka laga soo qayb galo maasantiin